السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن داوديال meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeenimo isniin ah bisha November ay tahay 28 sanada 2021 qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah dawladda Turkiga oo ku soo biirtay wadamada dhexdhexaadinaya colaadda dalka Itoobiya ciidamada dawladda Itoobiya oo u dhaqaaqay dhanka magaalada Kombolja xaaladda xuduudka Itoobiya iyo Suudaan oo xiisad adag ka taagan tahay qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan barnaamijka ku maqal doontaan saaxiibayaal soo dhawaada barnaamijka waxa igu weheliya saaxiibkay Cabdullaahi Santaag oo alaab indhaha ku haya xaaladaha guud ahaanba geeska Afrika barnaamijka igu weheliya Cabdullaahi soo dhaw waxa la leeyahay iyadoo xaaladda dalka Itoobiya aan ognahay meesha ay marayso waxa ku soo biiray wadamadii hore u dhexdhexaadinayay dalka Itoobiya colaadiisa wadanka Turkiga Turkigu maxaa sababay inuu xilligan ku soo biiro dhexdhexaadinta jabhadaha Itoobiya ka kacay ee dawladda federaalka Itoobiya maxaase dan ah oo ka leeyahay horta Turkigu sanadihii ugu dambeysay wuxuu noqday dalalka aad iyo aad u daneeya arrimaha geeska Afrika ama dhamaanba dalalka Afrika si hoosana ula socda dhaqdhaqaaqyada iyo horumarka ka jira dalka Afrika oo dhan ayadoo taasi ay jirto hadana Turkigu laba bilood ka hor waa kii uu tagay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ay maaragtay uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa kii marka ay kala saxiixdeen heshiisyo badan oo ah ama maaragtay codsiyadii uu watay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya in uu maaragtay uu Turkiguna aqbalay una ka iibiyay diyaaradaha dagaalka ee droniska maaragtay sanadihii ugu dambeeyay dalka Turkigu maaragtay caalamku uu ka yaabana ee diyaaradahan maaragtay darawal la'aanta ama pilot la'aanta wax duqeeya meelaha fogna maaragtay wax ka duqeeya waxa intaas si dheer in Turkigu uu ballan qaaday in Itoobiya uu garab taagan yahay oo la garab taagan yahay dhaqaale iyo dhan military iyo saad waxa weeye dhinaca garab istaaga qaybaha militariga dalka Turkigu marka hase yeeshee dalka Turkigu miisan wax dhexdhexaadina sanad maartay bilihii hadda ama sanadkii uu soo socday dagaalka wax dhexdhexaadina kuma dhawaaqin sida dalalka maartay reer galbeedka kale to ay maartay in badan ay ku dhawaaqayeen oo ay lahaayeen dhexdhexaadina ayaa furaynaa wada hadalla ayaa furaynaa labada dhinac waa in la isku soo dhawaado Turkigu kuma hadlayna xaaladaha dalka Itoobiya hase yeeshee hadda waxaad moodaa inuu si toos ah u soo galay inta badan dalka Turkigu wadamada uu soo galo oo ama dhexdhexaadin uu soo galo ama dagaal uu soo galo sanadihii ugu dambeeyay guulo ayuu ka keenayay dadka siyaasadda falanqeeya ee si aadana ula socda arrimaha Turkiga waxay sheegayaan in Turkigu hadduu mar soo galay arintu ay u dhici doonto laba dhinac mid ay u dhici doonto ama lagu kala guuleysan doono dagaalka ama maaragtay lagu wada heshiis loo wada dhan yahay la wada furi doono xabadu ay istaagi doonto ay leeyihiin dalal badan ayaa ku jira oo wada hadalla maaragtay rabay ama heshiis inay dhex dhigaan labada dhinacba yaa muddo badan rabay sida dalka Mareykanka iyo Canada UK dalal fara badan African Union ka asagana oo qayb lixaad ka qaatay in maaragtay la isku soo dhaweeyo labada dhinac ee colaado ay ka dhaxayso marka waan arki doonaa marka Turkigu dhexdhexaadintan uu ku dhawaaqay iyo meesha ay ka bilaabaan iyo qaabkii balay u dhacdo iyo in ay labada dhinacba ay wada ogolaadaan waan eegi doonaa hase yeeshee waxa la rajaynayaa in guul weyn uu ka keeni doono Turkigu mar hadduu soo dhaxgalay dhexdhexaadinta labada dhinac haddii aan u soo laabano colaadda ka taagan dalka Itoobiya iyo xiisadahan xabadaha ah ee dhacaya ciidamada dawladda Itoobiya waxa la leeyahay waxay u jihaysteen dhinaca magaalada weyn khalkhalka badan ku abuurtay magaalada caasimadda oo dalka Itoobiya Addis Ababa oo magaalada Kombolja xagee ka soo galayaan magaalada Kombolja maxaa laga ogyahay oo halkaas ka socda horta magaalada Kombolja waxa maalmihii ugu dambeeyay ama maaragtay ay bishii hadda ugu dambeysayba gacan haynteeda inta badan iyo deegaamada ku xeeran balahaayeen xogaga TDF iyo kuwa oola ee isgarabsanaya horaanna waxa sii joogay ciidamada dawladda oo maaragtay muddaba gacanta maaragtay ku hayay oo lagu la dagaalamayay in gacantooda ay ka baxdo xogagan TDF iyo kuwa noolaana waxa kaga dhintay dad aad u fara badan ama ciidan aad u fara badan ay ku waayeen dawladdu marka sidii ay gacanteeda uga baxdayba way ku adkaatay inay dib ugu laabtaan oo ciidamadu ay dib u qabsadaan
hase yeeshee hadda waxaa la filayaa saacadahan soo socday maalmahan soo socdaba inay maaragtay ay gaadhaan ciidamada dowladda federaalka ayna kasoo galaan dhinaca canfarta. waxaa la sheegayaa in deegaamo badan oo u dhadhow oo dhinaca xuduudda canfarta ah in ay soo qabsadeen, waxaana si ila xogogaale ay sheegayaan in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu dhinaca ka dagaalamayo oo maaragtay halka uu joogo isagu. waana xeelad military oo waxaa la doonayaa in dhinaca kale laga soo galo dhinacii ay filahayeen xooga TDF iyo kuwan kale ee wala ay filayeen dhinacaan ahayn in laga soo galo si loo wiiqo xoogagan magaalada ku habsaday. magaaladan runtii waxay ahayd magaalo istiraatiiji ah, warshadaha dalka Itoobiyana ugu badan baana ku yaali jiray. hase yeeshee xooga TDF inta ay qabsadeen ama kuwan iyo kuwan hoolaha iskarabsanaya intii ay qabsadeen dhulka ayaa la sameeyay oo warshadihii oo dhan waa la gubay, ganacsiyadii waaweynaa oo dhan iyagana dab ayaa la qabadsiiyay, wixii la boobi karin waa la boobay, iyadoo shacabkii meesha deganaana badankooda iskaga qaxeen oo Addis Ababa ay soo galeen. marka magaalada istiraatiijiga ilaa iyo intii ay xooga TDF iyo kuwan hoola ay qabsadeen magaalada caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa khalkhal weyn ayay ku abuurtay, sababtoo ah waxaa taariikh ayaa dib loo eegay intii dowladood ay soo bedeli jirtay ama soo dagaalami jirtay iyo ilaa boqortooyo magaaladaasi ayada iyo dhisay ninkii qabsado ayaa inta badan xukunku uu hari jiray. marka magaaladan marka dadka siyaasadda Itoobiya aad ugu dhuuntaleele ee falanqeeya waxay sheegaan in haddii labada magaalo ay haystaan xoogaga TDF iyo kuwa hoola ay haystaan in ay fududaanayso soo gelista caasimadda Addis Ababa ama qabsashada caasimadda Addis Ababa. marka taasi iyadoo laga duulayo waa tii marka ra-iisul wasaaruhu uu golihiisa wasiirada xataa amar ku bixiyo uu yiri furmaha hore dagaalka aan ka xaadirino ana maaragtay dhiirigelino ciidamada ka dagaalamaya furmaha hore ee dagaalka. ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo taariikhda ilaa iyo maalintii uu maaragtay uu tagay furimaha hore ee dagaalka ilaa hadda dib uma soo noqonin, wuuna wadaa dagaalkii. welina waxaa la sheegayaa inuu weliba isagu tuutaha u wato qoryahan maaragtay silsilada xumbaara in uu garabka ugu jiro oo weliba uu dagaalka afka hore uu yahay uusan ahayn nin dib u soo maaragtay dib u fadhiya ciidamada inuusan ahayn ee dadka maaragtay siyaasadda Itoobiya u dhuntay ay sheegayaan. ninkan Abiy Ahmedna waa nin dadka aad u yaqaana ay ku sheegaan nin aad u geesisoon, dagaalo badanna soo maray oo wadamo badan ka soo dagaalamay sida hadda Eritrea oo kale markii Itoobiya la dagaalamay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayuu kamid ahaa bay dhahan. wuxuu kamid ahaa sirdoomadii kacdoonkii xoreynta Oromiya markii uu xoog lahaa maaragtay 2000 iyo 1999kii intii u dhaxaysay xogaga markay xooga ay lahaayeen wuxuu ahaaba la leeyahay saraakiishii lagu dhax dhuumiyay gobolka Oromada ama deegaamada Oromada maaragtay loo diray ee dharcadka ah ee guulo waaweyn ka soo heeyay mas'uuliyiinta ugu soo sareeyay iyo markii la leeyahay xoreynta Oromiya meeshii ay joogeen. marka bal waan arki doonaa ninkan wuxuu sheegay oo ra-iisul wasaaruhu waliba wuxuu inta waxa weeye u sii dheer oo uu sheegay isaga la fahantiisa uu sheegay in uusan soo noqon doonin in la dilo iyo ilaa uu kooxdan uu ku tilmaamay argagixisada uu ka sifeeyo dalka Itoobiya. waa sidoo hadalka u dhigay. waad mahadsantahay Cabdullaahi. dagaalada Itoobiya oo hadda xaaladoodu aan arkayna meesha ay marayaan isla markaana ka sii daraya maalin ka dambeysa, waxaa haatan muuqata in dowladda Itoobiya iyo ciidamadeedu ay weerarka iyagu leeyihiin. marka ma la isdhihi karaa ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa hadda gacanta sare leh? ciidamada horta waxaa ka maqnaa dhiirigelin ayaa ka maqnayd waagi hore saraakiil ayaa hogaaminaysay. saraakiisha hogaaminaysayna waxay ahaayeen saraakiisha ay magacowday xogaga TPLF ama EPRDF xisbigii hore EPRDF u shaqeynayay ama ka amar qaadan jiray ayay ahaayeen. hadda marka waxaad moodaa in saraakiishiina la bedelay, qaarkii laga shakisnaana waa kii la xiray ee asbuucii la soo dhaafay saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya la xirxiray. marka mar haddii madaxda ay qoriga wadato حتى هذا TPLF سرقال كان أي مجاعبين كم دير رنجلا إنه وحسميه صوت إثيوبيا وحلوك الأذجية قري أفكا يلوك الأذجية وحكلا تو الله جبقى أنت بدن ملها ساس ترتد مركب وحوي أسكري لجشك أما مارك تسرقال كي لجشك وما حيا الله سيقاضية تاسيد ترتد بمركب حدين مسؤولين تيوجسر سريز الدلك يقولي قد نور كسرتين أو يفرما هراء تجال كتجن إذا ما تديب أو مسون نقول يعني صوت أنك سو عرض هدو أما ديب بلغت توجن يابا وإذا ما ديب تجن بديب كتوجن أما مال وكون نقول يابا ما له TPLF فتاي بلا ديو حبس دايم بلا دريا أو ولا سلع مريادين يا مركب إذا ما ذو حتى واحد مدة إني أي وهاي
dhiirigelin weyn ay haystaan horumaro badanna ay kasoo sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyay sababtoo ah waxay qabsadeen magaalooyin badan oo hadda magaalada Baarti oo kale waxaa gacanta ku hayay ciidamada TDF ayaa gacanta ku hayay oo horaantii bisha ay qabsadeen deegaamo badan oo Baatiga hoos yimaado oo maaragtay ay iyagu haysteen baa jiro oo laga qabsaday hadda marka waxaa la iskula soo socdaa in la isla soo galo magaalada Kombolja in la isla soo hadii Kombolja ay kooxaan gacantooda ka baxdana designer gacanta ay ka baxaysaa oo maaragtay waxaa qabsanaya ciidamada dawladda ee dib ugu noqonaya marka ciidamadan waxay noqonayaan ciidamo tabar aan lahayn oo maaragtay la wiiqay ay noqonayaan oo marka diyaaradaha in lagu waarsado oo marka ugu dambeyn gobolka Tigreega la isla galay ay noqonayaan waan gartay haddii aan u leexano dhinaca xuduudka Suudaan iyo Itoobiya halkaas waxa la leeyahay waxa ka dhacday xiisad dagaal shalay maanta xaaladdu waa sidee xiisadina wali ma taagan tahay horta xiisadan dagaalka ma bilaabanin maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay toona ma bilaabanin ilaa iyo intii uu Abiy Ahmed uu qabsaday xilka ama gobolka Tigreega isku dhaceen xiisada way socotay horaanna waxaa laga qabsaday dhulkaasi sida taariikhiyan ama maaragtay dadka ka faallooda dalka Suudaan ay sheegaan dhulka waxa lahaan jiray baa dalka Suudaan ayaa lahaan jiray dhul beeraley ah weey oo beera badan way wax soo saar leh dhulkaasi waxaa la sheegay inay xogaga waagii ay Manazanawi uu qabsaday in laga riixay Suudaan oo dagaaladii waaweynaa ee halka ka dhacay laga qabsaday dhulkana murankiisu muddo dheer ayuu soo socday hatta ma aha xilligii Manazanawi uu qabsaday Malise uu qabsaday ma aha ka hor ilaa Haile Selassie ayuu murankan ayuu soo socday dhulkan u dhaxeeya ee Suudaan iyo Itoobiya hase yeeshee xilligii 2019 mise 18 waagii uu qabsaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhulkan Suudaan bilowday kacdoon military ayay bilowday in ay maaragtay ay dhulkan ay soo cisho dhulkeeda ay soo cishato Abiy Ahmed marka uu iska caawin lahaa oo ciidamadaasi dhulka mayn qabsay maaragtay Suudaan dhulka mayn qabsateen laakiin waxa u suura galiyay Suudaan inay dhulka qabsato gobolka Tigreega oo ku kacsana gobolka Tigreega markay dawladdu marka xoog ay galisay waa laga mashquulay dhulkaasi in maaragtay dib Suudaan loo riixo Suudaanna way u soo gashay dadkii beeraleyda baa la soo riixay dadkii maaragtay jabhada yar meesha joogay cagta baa la soo mariyay ciidamo yar yar oo ilaalada joogay ayagana way soo carareen dhulkii Suudaan saasay ku qabsatay dhulkan runtii Abiy Ahmed kama soo hadlin sababtoo ah hal libax saaran duwa ku dil lagu habaara leeyahay Abiy Ahmed waxa hadda saaran ururo mucaarad ah oo ka dagaalamaya dalka Itoobiya oo ku haysta kursiga isaga uu haysto marka Suudaan Janis oo hadda ama kula dagaalamo ama maaragtay uu ooga hadlo ama ciidamo halka u geeyo ma hayo shaqaaqa yar bay shalay waliba ahayd oo dagaal weyn ma ahaynba wixii hadda shalay dhacay ciidamo iska hor imaaday oo kuwa yar oo ilaalo ah oo Axmaarada gobolka Axmaarada ka tirsan oo ciidamadii gobolka Axmaarada deegaanka Axmaarada iyo kuwii militariga ee Suudaan ayaa xabad isku furay Ethiopia wixii ka dhintay maysa sheegin low Ethiopia inta badan ba aysa sheegeen ba wixii ka dhinto laakiin dhanka Suudaan waxay sheegeen in laba askari ay kaga dhinteen halkaasi oo shaqaqadii shalay dhaxday ay kaga dhinteen dalka Suudaan way ka go'an tahay in dhulkeedan gabi ahaanba ay gacanta ku wada dhigto oo Ethiopia wax ay maaragtay aysan u reebin ayaa ka go'an xagga Ethiopia waxa la sheegaa dadka dhulka geographiga ay sheegaan inay 50 kilomitir Suudaan ay gudaha ugu soo jirto dalka Ethiopia Suudaan waxay la socotaa oo maaragtay sidoo kale taayada naftirkeeda ay ka xun tahay webiga Niil maaragtay Ethiopia ay biyo xidheenka weyn ee Niil ay Ethiopia ay samaysay oo Suudaan in badan ay ku sheegtay oo tiraahday webigan dad wadamo badan ayuu ka dhaxeeyaa Ethiopia ka tanaasushay arrintaasi